ayaa dhexdooda isku dhiiboo yidhi hoo bariiska dagaal culus oo saacado socday ayaa dhex maray ilaa haddana iyagiibaa is-uwaadhsanaya kooxihii kale khawaarijtana dhooshay ka qoslayaanoo agtooda kama dheera ciidankii waa la ysku diro waa la yska hor keenay labadan ciidan waxay ka wada tirsanaayeen guutada loo yaqaan ama guutooyinka loo yaqaana birjeex ee waayihii ugu dambeeyeyba hadalhayntoodu ay taagnayd waxayna ku sugnaayeen deegaankan buule xaaji iyo adigu aaggan un jubbada hoose ee deegaan xeebeedka ayay ku sugnaayeen ciidan markaa qayb ka mida ciidankaasi baa soo goostay oo rabay inay ku biiraan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay kuwana markaa ay isku heleen oo ay uga daba imaadeen deegaanka baqdaad oo deegaan xeebeed oo ay rabeen kuwan inay doomaha ay ka raacaan dabcan halkaas ayaana laysku helo jilibka la ysku xabaashay haddana weli xeebta ayaa laysku waarsan oo layska dhex raadinayaa oo qaybta kale ay kebla yururto ay halkaa ku ilaashanaysaa khasaaraha ka dhashay waan dul istaagi doonaa dagaalkaasi iyo cidda ka dambaysayba qodobkeenna labaad axmed madoobe amar ayuu siiyey golihiisa wasiirada ee waktigoodii uu dhammaaday wasiirkii xanaanada wasiirkii waxbarashada wasiirkii cimilada wasiirkii amniga wasiirkii haweenka iyo dhallaanka wasiirkii qoyska wasiiradii oo dhan amar buu siiyey amar kama dambaysa waa la kala dhaqaajiyey badda iyo duurka la kala galay iyadana amarkaasi iyo saamaynta uu ku yeelanayo wasiirada wakti xaadirkan halka loo diray ayaan iyadana dul istaagi doonaa hadduu aledmo dhinaca kale waxaan dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey deegaanka raaskambooni wafdigii ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ee lalahaa wuu imaan doonaa iyo sidoo kaleeto xaaladda guud ee deegaankaasi awoodda ciidanka dowladda federaalku ay halkaasi kusoo bandhigeen iyo isballaadhinta ay weli wadaan ciidankii axmed madoobe uu halkaasi ku daadgureeyey iyo meesha ay ku dambeeyeen iyadana waan dul istaagi doonaa waan iftiiminaynaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilowne maanta jubbaland waxay maraysaa oo axmed madoobe iyo maamulkiisii ay maraysaa in ciidankii daraawiishta jubbaland midba midka kale uu maanta isagii cadow uu arko oo xabadoodii iyagii la isku jeediyey axmed madoobena arrintaa ka shaqeeyey ciidanka waayahaba waxaa jiray tuhun lala xidhiidhinayo inay ku biirayaan kuwa dowladda federaalku ay isdhiibayaan sida awgeed bu axmed madoobe intuu dad u dira wuxuu yidhi dabagala ninkaad aragtaan inuu xagga u janjeedhaba madaxa jabiya dhalinyaradan waa dhalinyaro soomaaliyeed halka ay ku socdaan argagaxiso maaha waxay ku socdaan dowlad federaal waxay ku socdaan dowladdii dalka ka telisay waxay ku socdaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed waxay ku socdaan wiilashii walaaladooda haabay u socdaani ma ayagaa cadow u socda cadow baa looga dhigay inay u socdaan bu axmed madoobe uga dhigay maanta ciidan baa ka soo goostay guutooyinkii waayihii ugu dambeeyey hadalhayntooda ay taagnaydee birjeex loo bixiyey ee deegaankan buule xaaji joogay waxa ay u goosteen deegaanka baqdaad oo aan ka dheerayn aaggaasi oo deegaan xeebeed ah oo ay doonahayeen inay dooma ka raacaan oo ay ku biiraan ciidanka dowladda federaalka halkaas baa ciidan kale amar lagu siiyo layidhi ka dabagalo oo laaya madaxa ka gura baa layidhi dagaal baa halkaa marka ka qarxay daqiiqaduu dagaalkaasi socday dhaawac iyo dhimashaba waa jiraa walow meeshu aysan antiino lahayn oo aysan shaqaynaynin aroortii horeba ama gallinkii horeba maantaba ilaa 2 qof oo dhaawaca ayaa lasoo sheegay dhimashada iyo dhaawacana khasaaraha inta uu leeyahay si rasmiya loo oga laakiin waxaa la sheegay inay hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsadeen kadibna daqiiqada markuu dagaalkii uu socday xeebta la kala galay dhulku waa dhul waxa weeye hawda oo ninkan hadduu kaaga horeeya qaybtan adigana kama dabageli kartid dabcan dagaalkii dee waa istaagay laakiin weli waxa weeye baadigoob la iskugu jiraa midba midka kaleeto dhalinyaro xoogaa bay ahaayeen oo kontomeeye ah waxayna doonayeen inay tagaan deegaanka raaskambooni oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya isla markaana ciidanka daraawiishta jubbalandba ay halkaasi kaga biirayeen ciidanka dowladdu ay halkaasi keentay maanta marka xaalka jubbaland halkaasuu marayaa in ciidankii daraawiishta jubbaland dagaal iyagii dhexdoodii uu ka taagan yahay in saraakiishii maanta mowqifkooda aysan hadli karin
axmed madoobe uu amar ku bixiyey qofkii xagga hadalkiisa laga maqlaa in la toogto la dilo oo maanta amar ku bixiyey ayay maanta marahayaan 13 sano kadib ninkii la rabay inuu wax qabad iyo ammaan uu bulshadiisa kaga tago halkaasuu maanta marinaya ciidankii daraawiishta ugu dambeeyey meesha ugu dambaysa weeye ciidan marka shacabka la soo bogo oo haldoorka la soo bogo oo ummadda waxgaradkeeda dhan la soo bogo ciidanku markan ugu dambaysa ninka xuni iyo u dhaadhacaya axmed madoobe marka maanta ciidankii daraawiishta Jubbaland 13 sano kadib wuxuu baday inay xilligan iyo kow ninkii 14 sano ciidan ahaa inuu hadda uu ciidan qorto oo uu yiraahdo ka dawladda ku beeraya oo maanta kii shalay soo qalin jabiyay ee dawladda federaalka soo qalin jabiyay oo kala barhoreeyo oo liis maanta cusub loo furahayo ciidankii daraawiishta Jubbaland ee 14 sano dhufayska ku jiray xumaantiisii ayaa banaanka u soo baxday markii horeba dhalinyaradu waxba kuma ayn qabin laakiin waxay lahaayeen mar un buu isbedeli doonaayo isbedel wanaagsan la heli doonaa rajay haysteen laakiin rajadii baa soo dhamaatay maantana dhalinyaradii waa kuwa goosanaya ee ciidankii dawladda ku biiraya iyagiina laga hortaagan yahay ee qoriga la iskugu dhiibay ee ay istagaalayaan qadha isku hayaan taasi marka waa taas ummadda Soomaaliyeed ha ogsoonaato axmed madoobe inuu yahay cad hilib ah oo qurmay ama kansar ku dhex jira bulshada Soomaaliyeed oo loo baahan yahay in isku dhinac looga soo jeeso laga dhac qabto loo baahan yahay waa in bulshada Soomaaliyeed ay ogsoonaato weeye mucaaradayga maaha axmed ana dad ugu dhow laakiin waxaan ogsoonahay oo aan ka aamusi waayay oo aan bulshada Soomaaliyeed ina u soo bandhigo waajib igu noqotay axmed madoobe inuu yahay kansar ummadda Soomaaliyeed loo baahan yahay intuu saar ama virus aan cudur virus oo ummadda Soomaaliyeed inta ka badan aysan u sii dulqaadan karin intuu sii faafi lahaana in laga dhax qabto u baahan inuu yahay taasi ha loo ogsoonaado war ciidankii baa maanta la dhax galo maanta ciidankii meesha ugu dambeysay way wa kuwa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta magaalada Kismaayo bay ciidanku markii hore waardeynayeen magaalada Kismaayo iyo Afmadow ee magaalada Kismaayo iyo Afmadowna argagixisadu inay soo gasho waxba kuma aha haday ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya aysan difaacin ceebtaasoo maanta ummadii reer Jubbaland bulshadii reer Jubbaland iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland baa u baday taasi waa midda wixii ka soo kordho way weegi doonaan dhinaca kale axmed madoobe markuu fashilmay golihii wasiirada ayuu amar siiyey wuxuu yiri wasiir walba uniform ha xidho diriiska ciidanka waa inuu xidhaa ha dhaqaaqo hadee waayahay la dhaqaaqiye xagee la tagi xagee la xoreeyay maraaskan booli baa la tagi karaa mise xagee la aadaya wasiiradii madaxweyne ku-xigeenadii waa dhaqaajiyeen xagee aadeen cabdilla biroole buule xaaji janaay cabdalle waa saddexda ma wax kala jira war meel kale sheega saddexdaas la iskaga daba noqonaya laba tagaysa afar baa tagi way soo noqonayaan saddex baa tagi way soo noqonayaan saddex kala daba mari way soo noqonayaan saddex kala daba mari way soo noqonayaan waa cabdilla biroole buule xaaji iyo janaay cabdalle waa saddex tuulo oo magaalada Kismaayo dusheeda maxaa laga dhigayaa marka bulshada looga dhigayaa ciidankii halka joogay baa la booqday wasiiradii horma waxa gaareen waxa weeye way bixeen wasiiradii waxay aadeen meesha la yiraahdo ikan waxay aadeen hawlgal bay aadeen waa saddex tuulo Kismaayo korkeeda oo 13 sano ugu dambeeyay sanad walba la lahaa waa la qabtay waa la aaday waa la qabtay shabaab lagu jabiyay agaxaysa la jabiyay la lahaa weeye oo waa la jabiyay waa saddexda tuulo weeye kaliya meesha la aaday laga dhigayo inay wasiiradu ay aadeen kaaga daranta wasiirada aadaya waa wasiirkii waxbarashada waa rag siyaasadii intii laga fadhiisay jilib culus waa wasiirkii waxbarashada waa wasiirkii xanaanada xoolaha waa wasiirkii hooyooyinka dhalaanka waa wasiirkii cimilada waa ragaaban waxba ka ogeyn dagaal iyo ciidan iyo meel ku sugan yahay aan ka ogeyno qaarkoodna waa hore laga fadhiisiyay oo siyaasadda laga fadhiisiyay oo meel aysan ahayn oo aqoon u lahayn baa lagu cayayubay alla kugu jajabiya qaarna waligood ciidan